xil wareejiyowkan iyo ku bedelnayti haani hora waliba la wareeji jaray documents iyo ka idiyeen wali alaabe wasaaradda haysata iyo oo tirokoob jana feelalka jaraan ilaa tangeeka waliba haytay to itusi taabsi oo alaabtana hal la isku tirsaday taasoo markii ku horeeyay uu sameeyay agaasimaagii hore ee wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka koonfur galbeed xil wareejiyowkan iyo ku dhiiri guda minka madaxtooyada koonfur galbeed ee Baydhabo iyo ana gobro ku haayeen wasiir ku xigeenka cusub ee wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka iyo agaasimaaga xilka wareejiyay liibaan sheekh shucayb agaasimaagii hore ee wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka koonfur galbeed oo xil wareejiyowka kureed warbaahinta la hadalay yaa in sheegay intan iyo ata hanaanka dawladnimo hantida dawladana iyo ata toolanka dheeli korna oo xifdiyo u baahan markii la wareejiyowna iyo faylata in dhammaan alaabta wasaarado sila aragow lan wareeji mayba meel raaysi toos meel raay in ku wareejiyay aqalkii wasaaradda gargaarka oo anahay oo horay ana meel raay contribution hamniiseen hay'adda concern iyo hay'adda World Vision alaabtaas oo meel raay adagii deerasi meel raay tumiyo shan kursi armaajada afar sida selfish ka buugta la saardawe afar miis iyo alaabo badan oo yar yar meel raay saddex kursi oo wareegda oo xafiisyada oo madaxda meelan may buu meel raay dawladda aan koonfur galbeed Soomaaliya may baahan shaqeeyanay muddo dhan 4 sano haddana kala wareeg gudaashay may ba wareejiyahay meel raay aqalkii una ka shaqeeyaan 4 sano oo shalhay aan xafiiska ka shaqeynay aan cusub aan deeri oo meel raay in wasaaradii oo gargaarka iyo maareynta masiibooyinka aqalkii la hayay oo hayna shaqada shacabka